وهجاج قيمها شلين سوماليغا هوس أيو دعاي إلا إيا مركي دولة دي دحية دالك أي بربرتي تيادا لعقت هذا سوق دح سعوته ومد آد أوليدتا وغوغوان inta badan shilin Soomaaliga waxa lagu kala iibsadaa waxyaabo aan badnayn oo ay qudaartu ka mid tahay sarifka lacagta si degdeg ah isuma bedelin muddooyinkii dambe halkii dollar waxa celcelis ahaan lagu sarifaa 25,000 oo shilin Soomaali ah in muddo ahba lacagta kaliya ee dalka ka shaqeynaysa waxay ahayd 1,000 shilin ganacsato ayaa ka mid ah dadka shilin Soomaaliga been abuurka soo daabacday waxayna taa keentay in qiimaha lacagta ay hoos u sii dhacdo dawladda Soomaaliya ayaa mar hore sheegtay in ay soo saarayso lacag cusub balse wali lacagtaasi ma soo bixin haddaba maxaa hortaagan in Soomaaliya lacag samaysato saameyn intel eg ayay lacag sameyn la'aantu ku leedahay dhaqaalaha dalkaynaha iyo ina kale ayaanu dooda khamiista ee caawa ku eegi doonaa waxa ay gala qayb galaya Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo hore u ahaa bangiga dhexe uga ahaa gudoomiye iyo Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary kana mid ah guddiga dhaqaalaha qaranka labadiinaba soo dhawaada mudanayaal aad ayaad u mahadsantihiin aad barnaamijka nagala soo qayb gashaan aan ku bilaabo Dr. Warsame doctore bal arar noogu samee marka hore maxaa sideebaase lacag maxaa qiimo tira maxaa qiimo siiya guud ahaan dunida Soomaaliya hayno joogtay warunta weeye oo horta waxaan de qiimo bararka leedahay oo dhan wuxuu ku xidhan yahay lacagtaadii oo qiimaheedii isbedel ama dhacay waxyaalaha marka qiimaha u yeelayo waxa weeyaan lacagtu sideedaba waa qandaraas sharci weeyaan oo dawladda ayaa fusucudsiisa ama tu gobol ha ahaato ama tu dhexe ha ahaatee marka taasi ay weeqanto dabcan de lacagtaasi awood yeelan mayso cid walba way iska daabacanaysa haddii marka lacag badan la daabacana waxay keenaysaa lacagtii badneed la daabacay in ay boqoshada yar eriyato dabeetana uu marka kor u kaco marka labada arrimood ee keena quwadeeda waxa ka mid ah kow inaad marka hore control ka leedahay laba inaad wax dirto oo banaanka u dirto dad kale oo wax iibiya ay lacagtaada u baahan yihiin sida xoolaha andirayno oo kale waxyaalahaas marka labada arrimood ayaa keena kalsoonida lagu qabo lacagta iyo waxyaalaha aad banaanka u dirto ee aad lacag qalaad ku hesho ee labada arrimood ayaa runtii xoog keena Dr. Xuseen Warsame aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aan soo geliyo Dr. Maxamuud Culusow doctor adna mar baad ahayd gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya sida muuqatana baahi ayaa loo qabaa lacag Soomaaliyeed in la helo maxay Soomaaliya lacag u samaysan laadahay ogaalkaaga waxa ugu muhiimsan horta waa in salaamay Xuseen waa salaamay adika waxa loo sameeyay waxa weeye hadee dalkiisa la socoto waa burburay dawladdii waa dhamaatay sidii hadda uu sheegay Professor Xuseen waxa weeye inay jirto legal tender wax la yiraahdo waa in dawladda la control karo sharci jiro marka arrimaha waaweyn oo hadda haysta waxa weeye kuwa siyaasadeed kuwa sharci kuwa maamul iyo kuwa dhaqaale intaas oo mashaakil baa hortaagan xagga siyaasadda horta waxa weeye hadee sida dastuurka ku qoran qodobka 122 ayay ku qoran tahay in dawladda cusub iyo dawlad goboleedyadu ka wada hadlaan nidaamka dhaqaalaha soo noqon doono maaliyadda waxa ku xigi doona waxa weeye sharciga in la sameeyo la daabaco ayadana farsamo u baahan lacag bay u baahan tahay dawladdu inay awoodi karto in la kontrolo lacagtaasu bangigana inuu leeyahay awood uu ku maamulo lacagta oo ku ilaaliyo waayo hadee wax badan oo maamulka la xiriira ayaa la socda lacagta marka waxa weeye ilaa hadeertaana dawladdu ma aysan gaarin heer ay ku hanan karto maamulka iyo maaragtay muxuu ahay soo daabicidda lacagtii loo baahnaa dalka dhanna meel kasta waa inay ka jirtaa lacagta la gaarsiiyaa baahan kaliya ama hal gobol ama degmo kaliya maahan waa gartay Dr. Culusow dawladihii Soomaaliya isaga dambeeyaba mid walba waxay lahayd lacag ayaanu samaysanayna adigu maadaama aad horan uga shaqeysa bangiga arrimahana u dhownduleesho rajada aad ka qabtay in ay Soomaaliya dhawaanahan lacag hesho intee la eg tahay Dr. Culusow Michigan runtii horta hadda waxaa jira ilaa markii ay bilaabatay barnaamijkan oo IMF-ta iyo World Bank bangiga dhexana ay la wada shaqeynayeen 2013 laga bilaabo waxaa
laysku afgartay ama marka hore tijaabo ahaan in lacagta hadda kunka shilina oo meel walba la daabacayo oo sicir bararka keentay in la joojiyo oo kun cusub oo adigu aan la bedeli karin in la keeno oo la sameeyo ayaa laysla soo qaaday si loo bedelo waxay u baahatay lacag adigu qiyaastii intaan haddaan xusuustayda ay khaldaneen 46 milyan oo dollar keliya weeye ayada waxa weeye lacag kale ma ahayn waxay keliya 40 iyo maaragtay kunka dollar keliya in la daabaco haddee mar haddaaman dalkii nidaamkiisii dowladnimo uusan dhisnayna waa adag tahay in nidaam lacag lasoo daabaco oo dalka mataqaanaa la geliyo marka waxa weeye dowladnimadu waa inay dhisantaa oo xagga siyaasadda nabadgelyada maamulku intaba waa inay maaragtay noqdaan kuwa hanan karaya mas-uuliyaddaas waa garta aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay professor xuseen haddii aan soo gelayo professore adiguna dhaqaalaha ayaad ka shaqaysaa oo aad wax ka dhigtaa sida aan isleeyahay soomaaliya sida uu sheegay doctor culusow way adag tahay in lacag la sameeyo lacag samayn la'aanta maxaa nooga maqan ummadda soomaaliyeed maxaa uga maqan horta mid yaraan ku daree dhaqaalaha keliya ma dhiga meelaane dee bangiga dhexe guddigiisa sare ayaan ka mid ahay oo arrimahan haddaan ka hadlaynaa dee waaba waxyaalaha aan ka hadallo weeye wax badan oo sira ayaa dabcan jirta oo aanan sheegi karaynin haddii laha yidhaahdo marka dambe aad u sii baahataan haddii la yidhaahdo si aad faahfaahin uga sii heshaana waxaad la hadli doontaa nin baan magaciidin siinaya hadduu guddoomiyuhu u ogolaado guddoomiyaha bankiga iminka waxa weeyaan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo aa ma garanaysaa nin dhaqaalayahana muddo badan waxaan ka soo shaqeeyey laakiin ninka noo qaabilsan arrimahaas ee haddaan guddiga sare ama board directorska weeyaan markaan guddiga sare ka hadlayo soomaaliga baa waxoogaa isku board director ninkaan kala xisaabtanaa waxa weeyaan nin khabiir aan ka keensanay daga Canada oo nin Soomaaliya oo Axmed Xundubey Bashiir la yiraahdo oo ilaa sanadkanba 3 nin oo waxaan soo qaadanay aad iyo aad u muhiima oo ninna Mareykan ka soo qaadanay oo xisaabaadka iyo noo maamulaya ninna aanu ka soo qaadanay Mareykan dhaqan marka raggaas horta laakiin ta ugu muhiimsan waa tii uu taabtay weeyaan barnaamijkii horta waa la wadaa oo way socotay inta guud idiin sheegi karo waxyaalaha la soo daabacay idiin sheegi maayo oo baacmishariga waxa laga yaabaa haddii $1 bala daabacay ilaa $1 ina daabacdaan haddii $50 bala dela $50 ka gaarsiiyaanba marka taasi waa siro cidina ma sheegto ma garanaysa wax la daabacayo laakiin lacag wala daabici doonaa sharcigeedeedii waa la dhameeyey meeshii lagu kaydinay waa la dhameeyey heshiiskii gobolada kale waa la dhameeyey waxaasoo dhan way samaysan yihiin iminka waxa dhimanuun in loo raadiyo lacagtii lagu daabici lahaa runtii weeyaan culusow 50 milyan ilaa waxa lagu qiyaasaa ma garanaysaa 70 milyan ogaada guud ahaanba sideedaba dhaqaalaha waxa daabici kartaa waxaan ka badnayn boqolkiiba 5 wax soo saarkaaga wax soo saarka Soomaaliya 7 bilyan marka 350 milyan wuxuu dhigmo dollar u dhigma inaad samayso weeyaan nowd kastana de lacag ba laga qaadaya oo sida uu kala adagihiina waxana waa inaad samaysaana lacag de aan la daabacan karin marka meelo badan baa la hadlaya waxyaalo badan baa socda iminka se idiin sheegi maayo exactly halka waa gartay doctor sirta inoo joogto laakiin degdeg ah ku weydiiyo baryahan dambe waxaa soo baxday lacag digital ah saameyn intee leeg ayay ku yeelatay su-aasha labadiinaba inaa idin weydiiyaan doonayaa min daqiiqadii igu jawaabta waa mahadsantiin macnaheedu mobile money-gan baad ka hadlaysaa ma garanaysaa iyadaa soo maaha ha digital money-ga digital money horta dee saameyn way ku yeelanaysaa laakiin waxaan qabaa haddii laha yidhaahdo way uun marka ay soo baxday arrintaasi haddii laha yidhaahdo technologygaas cusub ee la gaadhay wuxuunbuu ka tari doonaan dadka aad u taageersan ma ka mid ahayna waxaa socoto digital money-ga iyo mobile money-ga gaar ahaan ama sidoo doonaba loo fuliyey inay socoto waana layer kala gooniya digital money-ga marar qaarkood waxaa la yidhahdaa yacni tan bitcoin-kiyo waxaasaa qaar laga hadlaa qaarna waxa laga hadlayaa ma garanaysaa lacagta lagu isticmaalo cellphone-iska innaga markaa ta cellphone-iska lagu isticmaalo weeyaan ta aad inoogu muhiima taasna aad bay Soomaaliya u gito 80% ayaa dadka 16 ka weyn hadda isticmaala waana muhiim saddexdii hay-adoodee ma garanaysaa ama Telesom oo zaadkeyga iyo ma garanaysaa kuwaasoo dhan ba iyagana waxbay noo taraysaa doctor Samar samaasanta culusow
haddee kolba horta lacagta sidii hadda loo sheegay lacagta ku saabsan mobilka haddee la-aanteedaba soomaaliya dhaqaalaheedu ma shaqayn karayo marka hadda taasu ilaa laakiin arrimahan bitcoinka iyo waxaas waxa weeye waqtigeedii iyo farsamadeedii iyo mataqaanaa maaragtay kartidii lagu maamuli lahay dalka ma jirto mana mataqaanaa dadkuna hadda ma yaqaaniin adigu hadda muhiim waxa weeye runtii in lacagta horta mobilka khatarta ku jirta oo ah haddii maalin keliya uu internetku istaago waxaa la gaarayaa dalka dhan inuu istaago dhaqaalihiisii arrintaasaa runtii u baahan in taxadar badan laga sameeyo si dadku aysan u noqon lacagta markii lasoo daabaco dadku markaas haddee waxay heli doonaan kaashkooda haddii baananku ay furmaanna waxaaba dhici karta inayna soo gaaraan credit card iyo kaarar la isticmaali karaaba imaan doona nidaamka dhaqaalaha iyo maaliyadda hadduu maaragtay horumar sii sameeyo oo hay-aduhu ay sii gaaraan markaas oo kale marka waxaasoo dhan waxay sahlayaan ganacsiga wax isdhaafsiga iyo waxaas oo kale hadhow marka shilin soomaaligana haddee markaas qiimuu soo yeelanayaa waa gartay doctor culusow aad iyo aad u mahadsan tahay adna waa ku mahad celinaya doctor xuseen inta aan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo